asalaamu calaykum dhammaan asxaabta waa idin salaamay. maanta waxaan halkan ku baranaynaa qaabka loo isticmaalo team viewerka. team viewer waxa waaye waa software ay isticmaalaan dad team ah, macnaha dad ka badan hal qof ama labo ka badan ayaa isticmaali karo. marka barnaamijkan waxa waaye waa isku xiraha laba device, laba computer, laba mobile isku xiro waaye. marka waxaad awood u leedahay inaad micnaha saaxiibka ama ehelkaada qof ka mid ah inaad micnaha devicekiisa aduu ya computer aad micnaha aad ka cilad bixisid. marka almuhim yaan hadalkeeda ku daalin. team viewerka ayaan kicinaynaa. barnaamijka waa kaasa. waxaan rabnaa markaas saaxiibkay in aan kiciyo. halkan marka waxaa yaalo horta asaga markii soo kacayo interfacekiisa waa kana saana kugu soo kacaa. okay, meeshaan remote controlka uu hadda noo joogaa. remote controlka marka inta halkan waxaa yaalo your id-gaada waaye. haddii macnaa qof saaxiibka haddii aad rabtid in qof saaxiibka uu kusoo xirmo computerkaada id-gaana siinaysaa iyo passwordkan. halkan marka waxaa gelinaysaa waa adiga kan qaybtan waa adiga iska leh. qaybtan waxaa iska leh remote control remote computer waa partner id-ga, macnaha qofka saaxiibka ah oo aragtid inaad computerkiisa adoo meel joogtid iyo asoo meel kale joogo inaad celceliso markii aad rabtid. halkan waxaa gelinaysaa id numberkiisa gelinaysaa. waa kana partner id ayaa kugu qoran meeshaan. id numberkiisa aad gelinaysaa, kadib waxaa leedahay connect aad leedahay. marka connect markaan laakiin waa inuu saaxiibka asagana soo kiciyaa kadibna uu aqbalaa. marka waxaan sugaynaa saaxiibkan si uu macnaha intuu kicinaan sugaynaa. sameynaynaa saaxiibkeen waxaan maleynaynaa inuu soo kiciyo. marka waxaan leenahay marka partner id-giisi meeshaan macnaha id-giisi meeshaan ku qoran yahay. waa kan id-giisi. waxaan leenahay connect aan leenahay. waa sugaynaa ilaa asaga ka aqbalayo okay oo ka dhahayo. laakiin waa in computerkiisa oo qadka uu ku xiran yahay. waxaan gelinaynaa marka passwordkii aan gelinaynaa. okay, passwordka waa gelinay. log in aan leenahay. marka haddii uu ku cajabiyey aadna ka heshay muuqaalkan, fadlan la wadaag asxaabtaada iyo familkaada. mahadsanid. haddii ay noqoto inaan cilad bixino, haddii ay noqoto inaan macnaha aan website wax ugu sheegno, si kastay ahaataba qofkii waa kana computerkiisi waa kana. okay, shaashada madow waxaa laga bedeli karaa. halkaas ayaa laga bedeli karaa. meeshaas viewga jagmarkagaas ayaa saaraysaa. kadib wuxuu ku noqonaya hadda jagmarka hadaad ka qaadid waxaa ku noqonaya originalka shaashada helaysaa. tii laakiin jagmarka uu saaran yahay wuxuu noqonaya madow ayuu noqonaya shaashada. marka waa kaasaa halkaas ayaad kor ugu sii qaadaysaa oo iska ku qarin kartaa kanne. isaga laftigiisa waxaad ku qarin kartaa. halkaas ayaad ku qarin kartaa. haddaa aratid meeshaan waxaad ka isticmaali kartaa video call caadi ah iyo messenger oo macnaha qoraal caadi messageka caadiga oo qofka kula xiriirtid si macnaha aad iskula socotiin intaad qadka ku jirtid. hadda kaba soo qaad waxaan u qoraynaa insha allah qoraal ayaan isku dayaa inaan qoro.
isagana kadibna wuu kasoo jawaabayaa. marka waxaa loogu talagalay inta aad ku jirtid shaashada macnaha intaad ku jirtid barnaamijka aad ku jirtiin inaad macnaha ismaqashiin ama qoraal isku maqasho ku wada hadashiin ama aad macnaha cod ku wada hadashiin ama video call ayuu leeyahay video callka aad isku maqashaan ayuu leeyahay. marka waa kaas hadda qoraal ayaan qorayaa waxaa ku soo baxay shaashada sira ku soo baxayso qoraalka marka uu qorto kadib asagana wuxuu kaaga soo jawaabayaa isla halkan ayuu kaaga soo jawaabayaa. marka hadba waxay ku xiran tahay sida saaxiibka u fahmi ku xiran tahay waxaan loogu talagalay intii uu socdo barnaamijkan uu socdo inaad macnaha halkaas aad ka wada xiriirtiin ayaa tahay. marka timeka oo qoraalka aad qortay timeka uu ku soo qoray intaba waa shaashada ayay ku caddahay. marka saaxiibka qoraalkii uu soo qoray hadda waa kana waa kaasa iyo saacaddii waqtiga uu soo qoray. waxaad awooddaa hadda inaad computerkiisa ka heshid oo aad macnaha u cilad bixisid. hadda kani waa tusaale wax ciladaada kuma jirto laakiin waxaan ku baranaynaa barnaamijka TeamViewer-ka. haddii uu ku cajabiyey aadna ka heshay muuqaalkan fadlan la wadaag asxaabtaada iyo familkaada. mahadsanid saaxiib. haddii aad qabtid wax su-aala ama aad tala nagu biirinaysid fadlan nagu soo qor descriptionka videoska hoostiisa qaybta commentiga lagu qoro ama faallooyinka lagu qoro nagu soo qor. hadduu ilaa yiraahdo waxaan isku dayi doonaa inaan ka jawaabno su-aalihiina. mahadsanidin saaxiib. haddii aad ku cusub tahay channelkan fadlan subscribe ku dhufo si aad u heshid casharada cusub ee aan soo geli doono hadduu alla idmo. marka hana iloobin like-ta iyo inaad sii share garaysid. mahadsanid. hadda waa kaasaa marka kani wuxuu ahaa cashir ku saabsan sida loo isticmaalayo TeamViewer-ka sida aad macnaha qof walaalka ama saaxiibka ama asxaabtaada ka mid ah ama familkaada ka mid ah si oo aad laba meel aan isu dhoweyn aad kala joogtiin si aad computerkiisa aad ugu cilad bixisid wixii markaas aad uga roon tahay in aad macnaha computerkiisa aad ugu cilad bixisid oo samaysid maadaama uusan ku dhoweyn. laakiin waxaa daruuri ah in asagana uu barnaamijkan computerkiisa ku degsan yahay adigana computerkaada ku degsan yahay. connectionkana labada qofood connectionkana waa in macnaha partner ID numberkiisana waa inaa haysaa haddii asaga macnaha iyo weliba macnaha passwordkiisa iyo weliba macnaha passwordka oo partner ID-ga macnaha connect markaad tiraahdo password ayuu ku weydiinaya. marka waxaad gelinaysaa passwordka saaxiibka ayaa gelinaysaa. marka waa kaasaa intaas ayaan ugu haraynaa insha allah. waxaan u maleynayaa inaad fahmi doontiin aan maleynayaa insha allah. waan salaamaya saaxiib. waa channelkeeni barasho furan. waxaa channelka magaciisu waxa waaye barasho furan for everyone. qof walba ayay macnaha ayaa wax ka baran karto oo waxaan diyaar u nahay qof walba inaan macnaha ka aqabtirna sidaas ayaan barnaamijkan ayaan ugu baxaynaa. waan salaamayaa nabadgelyo.